markii laga guulaystay muslimiintii reer Seelac dawladdoodii la riday suldaankoodiina la dilay dadkii waxa ay u kala firxadeen dhan walba qaraabadii iyo eheladii suldaan Sacaadudiin iyagu waxay u baxsadeen dhankaas Yemen waxayna magan u noqdeen boqorkii Yemeniyiinta ee Axmed bin al-Asraf dadka halkaas gaaray waxaa ka mid ahaa wiilashii suldaanka sida Sabrudiin Jamaaludiin Axmedudiin iyo Mansuur muddo yar kadib wiilashii suldaanka waxa ay go'aansadeen in ay dalkii dib ugu laabtaan halgan rogal calinna ay dib u bilaabaan waxayna taageero weydiisteen boqorkii Yemeniyiinta oo isna si gobonimo leh u soo taageeray waxay dalka dib ugu soo noqdeen sanadka markuu ahaa 1415 markiiba waxa ay bilaabeen abaabul dagaal iyo in ay dawlad aas-aasaan taas oo loo bixiyay saldanada cadal suldaankeedii koobaadna uu noqday suldaan Sabrudiin ibnu Sacaadudiin waxaana dawladdaas saldhig looga dhigay magaalada Dakar oo waqooyi galbeed uga toosan magaalada Harar saldanadii cadal waxa ay dagaalo waaweyn la gashay boqortooyadii Xabashida iyada oo taageero ka helaysa dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa geeska Afrika inkasta oo aanay ku guulaysan in ay dib u soo celiso dhammaan dhulkii hore looga qabsaday haddana waxa ay ku fara adeegtay dhulkii ay dawladda cusub ka aas-aastay waxaana xusid mudan wiilashii uu dhalay suldaan Sacaadudiin in ay dhammaantood ku dhinteen goobo dagaal iyaga oo difaacaya dhulkii muslimiinta kii ugu dambeeyey oo ahaa Axmedudiin ayaa lagu dilay isaga oo dib u xoreynaya gobolka Dawaara oo ka mid ahaa dhulalkii hore looga qabsaday wuxuuna shahiiday sanadkii 1445 wax iska caabintii muslimiinta intaas kuma aysan ekeen ee waxaa halgankii halkii ka sii waday carruurtii ay dhaleen ilmo Sacaadudiin rag iyo amiiro kale oo dagaalyahano ahaa madaxdii halgankaas doorka weyn ka qaadatay waxaa ka mid ahaa suldaan Maxamed Garaad Maxfuud Garaad Aboon iyo imaam Axmed Gurey sida kitaabkiisa Futuuxul Xabasha uu ku qoray Shihaabudiin Axmed ibnu Cabdulqaadir oo la kulmay imaam Axmed Gurey waxa uu yiri xilliga uu soo baxay imaamka waxaa geeyigii muslimiinta ka jiray foodo weyn waxaa la xalaashaday xaaraantii waxaa batay fasqigii qamaarkii iyo heesihii waxaa la iska daayay difaacii iyo dagaalkii Xabashida waxaana batay iskhilaafkii iyo xukun iska tuuristii xilligaas waxaa xukunka gacanta ku hayay suldaan Abubakar suldaan Maxamed oo ahaa tafiirtii Sacaadudiin suldaanku waxa uu taageero xoog leh ka helayay qabaa'ishii Soomaalida iyada oo ay jirto xaalad noocaasa ayuu imaam Axmed Gurey soo baxay iskuna dubaraday shucuubtii una carbiyey sidii ay isaga dhicin lahaayeen cadowga qura ay lahaayeen oo ahaa Xabashida inkasta oo imaam Axmed Gurey ee qaybo ka mid ah qabaa'ishii Soomaalida markii hore ay isku dhaceen haddana markii dambe Soomaalidu waxa ay noqotay cidda lafdhabarka u ahayd jihaadkiisa waxa uu waraaqa u kala diray dhammaan qabaa'ishii gaar ahaan Soomaalida si ay uga qayb qaataan halganka qabaa'ishii Soomaaliyeed ee sida mugga leh uga qayb qaadatay halgankaas kuna yimid dalabkii imaamka waxaa ka mid ahaa Geri Bartire Mareexaan Harti Xarle Yabare Jiraan Gurgure Hawiye iyo Masarre imaamku markii uu isku duburatay guutooyin ciidamo ah oo u badan dadkii raacatada ahaa sida Soomaalida iyo Canfarta ayuu u jehaystay dhulkii Xabashida isaga oo wacad ku maray in uusan dib u soo noqon ilaa uu ka furto dhulka Xabashida oo dhan goobtii ugu weyneed uguna horeysay ee fooda la isku daray ayaa ahayd Shimbiro Kore dagaalkaas boqorkii Xabashida ee Labna Dangal waxa uu xaqiiqsaday in imaamka iyo ragga la socdaba aysan ahayn rag la loodin karo goobtan ayayna guusha ku raacday imaamka iyo raggiisa iyaga oo ka guulaystay ciidamadii boqorka oo lagu qiyaasayay 200 oo kun maalintaas Soomaalida waxa uga dhimatay in ka badan 3,000 oo nin wixii ka dambeeyay Shimbiro Kore imaamku waxa uu hantiyay inta badan dhulkii Xabashida ilaa uu ka gaaray Tigray Askum Harada Tana xuduudka Nuubiga iyo Kasala oo Suudaan ah inkasta oo uu wacad ku maray in uu qabto boqorkii Xabashida haddana boqorku waxa uu dhintay isaga oo baxsad ah Labna Dangal intii uu baxsadka ahaa waxa uu fariin u dirsaday Boortaqiiska oo ahaa markaas awooddii ugu weyneed ee reer galbeedka
isaga oo ka codsaday in ay dowladdiisa badbaadiyaan. dowladdii Boortaqiisku waxa ay ka soo jawaabtay dalabkii boqorka, waxa ayna u soo direen 400 oo nin oo ku hubaysan hubkii ugu casrisanaa xilligaas oo ahaa madaafiic iyo banduuqyo, halka imaamka iyo raggiisa ay ku dagaalamayeen warmo iyo seefo. ciidanka Boortaqiiska waxaa watay wiil uu dhalay saamiyihii weynaa ee Vasco da Gama oo la oran jiray Christopher da Gama. dagaal qaraar oo dhex maray labada dhinac ayaa jab weyn loogu geystay ciidankii imaamka, laguna qasbay in ay dib u gurtaan. imaamku kolkii uu arkay sida xaalku yahay ayuu fariin u dirsaday khilaafadii Cusmaaniyiinta, gaar ahaan wakiilkii Masar, kaas oo u soo diray 900 oo ciidan oo si weyn u hubaysnaa. gurmadkii ciidamadii Cusmaaniyiinta waxa uu dib u soo celiyey niyaddii iyo rajadii muslimiinta, waxaana mar labaad dhacay dagaal qaraar, kaas oo ay guushii ku raacday imaamka iyo ciidankiisa, waxaana goobtaas lagu dilay ku dhowaad 200 oo ciidankii Boortaqiiska ah oo uu ku jiro taliyahoodii Christopher da Gama. guushaas kadib imaamku waxa uu saldhigtay harada Tana oo uu ka dhistay saldhiggii looga talin lahaa Abyssinia, waxa uuna imaamku ambabixiyey ciidamadii Cusmaaniyiinta, dibna ugu celiyey halkii ay ka yimaadeen iyaga iyo hubkoodii cuslaaba. nasiib daro, imaamku waxa uu u qaatay in guushaan ay tahay mid kama dambaysa, laakiin sidaas ma noqon. qaladkii farsamo ee uu galay imaamku ayuu ka faa'iidaystay boqorkii dhaxalka la wareegay ee Galawdagos. waxaa isa soo urursaday wixii ka haray Boortaqiiskii iyo guutooyin uu boqorku ka soo aruurshay dhulkii Xabashida. muddo yar kadib waxay weerar ku soo qaadeen ciidankii imaamka, waxaana u suurta gashay in ay jebiyaan, halkaasna ku dilaan imaamka iyo kumanaan ka mid ah ciidamadii muslimiinta. sanadka markuu ahaa 1543. jabkii muslimiinta iyo geeridii imaamka waxaa ka dhashay jahwareer xoog leh iyo in si aan habaysnayn looga soo baxo dhulkii muddada dheer la furanayay. waxaa dib loogu soo noqday halkii uu ka bilowday halganka iyo magaaladii Harar. intaas kadib waxaa taladii muslimiinta la wareegay Amiir Nuur Mujaahid oo ahaa geesi ay qaraabo ahaayeen imaamka. Amiir Nuur waxa uu wacad ku maray in uu u argudo imaamka, taas oo alla rumeeyey. dagaal weyn oo uu ku qaaday dhulkii Xabashida, gaar ahaan dhulkii islaamku lahaan jiray sida Baali, Hadiya iyo Fatakaar, waxaana aakhirkii u suurowday in ay goob isaga hor yimaadaan boqorkii Xabashida ee Galawdos, uuna ku jabshay isaga iyo ciidankiisaba. dagaalkaas ayaana dhacay sanadkii 1559. Amiir Nuur waxa uu Harar ku soo noqday isaga oo guul ku cimaamadan, watana madaxii Galawdos. amiirku sanadkaas ayuu dumaalay Bacthiya Garaad Maxfuud oo ahayd afadii uu ka dhintay Imaam Axmed Gurey. Bacthiya oo sidoo kale ahayd geesiyad duulaamada ka qayb qaadan jirtay, horeyna u diiday in Amiir Nuur ama cid kaleba ay dumaasho, iyada oo aan looga argudin boqorkii Xabashida. Amiir Nuur isaguna waxa uu ku geeriyooday magaalada Harar sanadkii 1567. wixii intaas ka dambeeyey labada shacbiba waxa ay la daaladhacayeen dhibaatooyinka qoomiyadda Oromada, kuwaas oo sida daadadkii ugu soo rogmaday saldanadihii muslimiinta iyo boqortooyadii Xabashidaba. qoomiyadda Oromada waxaa waagii hore loo aqoon jiray Gala, waa xaamiyiin bahwadaag hoose la ah Soomaalida iyo kuwa kale ee ku shitiga sida Beejaha, Saaxaha, Sidaamaha, Canfarta iyo Rendiilaha. xilligaas muslimiinta iyo Xabashiduba waxa ay ku mashquulsanaayeen dagaaladii waaweynaa ee u dhaxeeyay. Oromaduna waxa ay ku fidaysay qaybaha koonfureed ee dhulka Xabashida iyo gobolladii saldanada, ilaa ay aakhirkii dhinac walba uga baxeen dhulweynihii labada shacab. Galaha ama Oromadu waxa ay ahaayeen kuwii uu Amiir Nuur derbiga uga wareejiyey magaalada Harar si aysan u qabsan. amiirku dhowr jeer ayuu la dagaalamay Oromada, waxaana kii ugu dambeeyey ee uu qaaday uu ahaa xilli ay magaalada Harar go'doomiyeen, taas oo sababtay macluul baahsan oo dadkii magaalada ku habsatay. amiirku markii uu ka soo laabtay dagaalkaas ayuu u dhintay daacuunkii sababay macluushaas. Oromadu waxa ay kala xireen amaba ay kala dhex galeen muslimiintii iyo Xabashidii dagaalku ka dhaxeeyay, taas oo sababtay in qolo walba ay iskeed ula tacaasho qulqulka Oromada, waxayna qabsadeen caasimadii Xabashida ee Gondar ilaa ay gaareen Tigray. dhanka kalena waxa ay go'doomiyeen Harar oo ay dhan walba ka mareen.
dadkan badankoodu markii dambe waxa ay qaateen diinta islaamka inkasta oo markii dambe qaybo ka mida dib loo gaalaysiiyey gaar ahaan xilliyada kala duwanaa ee boqoradii tedros yohannes iyo menelekh kuwaas oo ka talinaya dhulka xabashida qarnigii 19aad sida ay qabaan taariikhyahanada darsa taariikhda geeska afrika qowmiyadda oromada ayaa si la mid ah qowmiyadihii kale ee xaamiyiinta la aaminsan yahay inay ka soo tallaabeen badda cas ayna ahaayeen raaci labaad waxayna degeen geeska afrika iyo dhulka hadda ay soomaalidu ku nooshahay taariikhyahannadan ayaa qaba in soomaalida oo ah raaci saddexaad ee xaamiyiinta iyo qolyihii ugu dambeeyey ee muhaajiriintii soo tallaabay ay si tartiiba in muddaa u soo riixayeen oromada kaas oo ugu dambayntii sababtay qulqulkoodii inay ku maasheeyaan dhulka xabashida gaar ahaan qarnigii 16aad la soco qaybta xigta oo aan ku soo qaadan doonno hoos u dhici labada dowladood ee saldanadii cadal iyo boqortooyada xabashida intaa muuqaalka xiga kulmi doonno nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh